madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi qasriga uu ka deganaa magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka isku tagga Imaaraadka Carabta waxa ka soo galbiyay gaadiid loogu talagalay hogaamiyayaasha dunida ee dalka soo booqda iyadoo horkacayeen madax sare oo ka arrimisa dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta waxaana wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi loo soo galbiyay madaarka caalamiga ee magaalada Abu Dhabi oo ah mid loogu talagalay madaxdu inay ka duulaan waxaanu ka soo raacay diyaaradii ka soo qaadisay wafdiga uu hogaaminayo ee uu soo ambabaxaysay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ambassador Baasha Cawil Cumar safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka hadlay madaarka ay ka soo kacaysay madaarka ay ka soo duuleysay diyaaradii soo qaaday wufuudda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ayaa yiri arkaysan maanta waxa halkan ka boqolaya waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waftiga madaxweynaha waxa halkan ku sii sagootiyay agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kala sarsare waxa kale madaxweynuhu la kulmay wasiir dawlaha ahna madaxa gudoomiyaha shirkadda Adnoc iyo wasiirka amniga oo iyaguna shalay la kulmay waftiguna maanta waxay u boqoli doonaan magaalada Hargeysa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Abu Dhabi